waa gabar madow Mareykan ah oo aad ugu calool xumaatay wax dhacay. waxaan ku suganahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. What did you want to say? What did you want the government to do? We want to show them that this is what is right, and we want to show them that we are here, and that it doesn't matter what color we are, it doesn't matter who we are, we're all the same. waxay leedahay waxaan nahay dad isku mid ah, kalarka iyo midabka macno ma laha. waxaan la joognaa iyada saddexdii maalin la soo dhaafayba, waxaan la joognaa gurigeeda. waxay leedahay waxaan rabnaa inaan ka warqabno xaaladdeeda aysan mar dambe ooynin. What did you want to say to the cop who murdered George Floyd? ninkan baa wareysanaya. He deserves to be tried like any other American. waataa daawadayaal, waxaan ku suganahay magaalada Minneapolis, gaar ahaan koonfurta magaalada Minneapolis. halkan aan taaganahay waa meeshii uu ka bilowday mudaharaadkii ballaarnaa ee magaalada Minneapolis ka socday. magaaladani waxaa lagu diray nin madow ah oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee Mareykanka. taasi ayaa waxay dhalisay in banaanbax ballaaran uu ka bilowdo magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida magaalada St. Paul oo kale. banaanbaxaasi waxa uu sababay khasaare aad u fara badan. khasaarahaasi waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 240 ganacsi ka badan in lagu boobay magaalada Minneapolis oo kaliya. labadaas 240 ganacsi boobka iyo burburka loo geystay. waxaa sidoo kale weheliya in ganacsiyada qaarkood la gubay. dhankan aad fiiriso magaalada saas bay u qaacaysaa. wadada hadda aan taaganahay waxaa lagu magacaabaa Lake Street. waa halbowlaha magaalada Minneapolis. wadadan waa caan waxayna isku xirtaa magaalada Minneapolis oo dhan iyo magaalooyinka ku hareeraysan. hadda markii aad wadadan fiiriso waxaad u malaysaa qofkii aqoon fara badan u lahaa in uu aqoonsan waayo, sababtoo ah burbur aad u xooggan ayaa soo gaaray. ciidamadan aad arkaysaan waa ciidamada kaydka qaranka Mareykanka. shalay iyo maalintii ka horeysay halkan waxaa taagnaa ciidamada booliska magaalada Minneapolis. kuwaasi way xakameyn waayeen waxa ka dhacaya iyo dhibaatada halkan ka taagan. sidaas daraaddeed guddoomiyaha gobolka Minnesota iyo duqa magaalada Minneapolis iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dalbaday. maanta ayaa halkan imaadeen. waxaana la leeyahay ciidamadan waxaa si gaar ah loo tababaray inay difaacaan markii ay rabshado iyo qalalaaso sidaan oo kale ay u dhacdo ama magaalo ay ugu dhacdo. waxayna diyaar u yihiin in ay magaalada bilicdeeda iyo sharaftii magaalada ay dib u soo celiyaan. ciidamadii booliska oo iyagu xabadaha cinjirka tuuraya shalay waxaa bedelay ciidamo kale oo ku hubeysan qoryahan waaweyn aad arkaysaan. ciidamadani ilaa 500 ayay gaarayaan kuwa halkan lagu soo daadgurayey. mana loo gudbi karo saldhiggii ciidanka ee shalay la gubay. waa saldhiggii saddexaad ee magaalada Minneapolis. shalay ayaa la gubay, xalay ayaa la gubay aan idhaahdee, raalli ahaa daawadayaal. taasna waxay dhalisay in ciidamada booliska ay meesha iskaga sii baxaan. amniga magaaladana ay la wareegaan ciidamada kaydka qaranka ee Mareykanka. banaanbaxan magaalada Minneapolis ayuu markii hore ka bilowday, laakiin hadda sidoo kale magaalooyin kale ayuu ku baahay sida magaalada St. Paul oo kale oo mataano la ah magaalada Minneapolis oo aan aad ugu fogeyn isla magaaladani. sidoo kale gobollo fara badan oo Mareykanka ah ayuu banaanbaxan hadda ka socdaa ilaa shalay sida magaalada New York kale iyo magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo Soomaali badan ay degan yihiin. waxaana la rajaynayaa maalinta beri ah oo ah maalinta Sabtida in ninkan aad buu u careysan yahay. wuxuu leeyahay waxaad difaacaysaan miya ninka amba ragga dilaaga ah ee dilka geystay. daawadayaal beri oo Sabti ah waxaa lagu balansan yahay in dalka Mareykanka oo dhan
gobolladiisa banaanbaxyo waaweyn in ay ka dhici doonto sidoo kale daawadayaal faras magaalaha Minneapolis hadda waxaa la soo sheegayaa in banaanbax isagana uu ka socdo ciidamo noocan oo kalena loo diray halkaasi walow la sheegayo banaanbaxa halkaas ka socdo waa banaanbax nabadeed lamana oga sida uu isku bedeli karo banaanbaxaasi sababtoo ah banaanbaxa Minneapolis ka bilowday maalintii ugu horeysay waxa uu ahaa mid nabadeed laakiin markii dambe ayaa isbedel aad u ballaaran yimid oo boob fara badan ayaa la gaarsiiyey magaaladii dadka la boobay ganacsiyada la boobay waxaa ka mid ahaa ganacsiyo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo magaaladani degan sida maqaayadda Quruxlow oo kale maqaayadda Xamdi oo kale iyo sidoo kale ganacsiyo aan hadda aan hubin oo la gubay ayaa jira oo ku yaalla magaalada Minneapolis gaar ahaan waddada Lake Street oo ah koonfurta magaalada Minneapolis dadku aad bay u xanaaqsan yihiin calanka Mareykanka hoos ayuu aadiyey daawadayaal maalmihii la soo dhaafay dadka mudaharaadaya waxaa ka mid ahaa dad Soomaali ah oo magaaladan degan sidoo kale ka qayb qaadanayay bilicda magaalada inay soo celiyaan oo dhulka xaaqayay isla markaana ka qayb qaadanaya sidii magaaladan ay u noqon lahayd magaalo qiimo badan oo sharaf badan dadku aad bay u xanaaqsan yihiin qof kastana mobilkiisa ayuu isticmaalayaa mobiladan caaqilka ah ee soo baxayna waxay tilmaamayaan in dadka madowga ah la dili jiray markii hore ay soo baxeen maadaama cadeymaha lagu duubanayo mobilada laakiin ciidamada waa kuwa isdejinaya oo degan ilaa hadda dhaqdhaqaaq aan muujinaynin doonaya in xaaladda ay dejiyaan ma ahin ciidamo hadlaya afka ayay wada haystaan ciidamadani waa ciidamada keedka qaranka Mareykanka waxaa loogu talagalay mararka ay dhibaato noocan oo kale ay timaado inay soo baxaan waad arkaysaan weli dadka Soomaalida weli way joogaan qayb ayay ka yihiin dadka mudaharaadaya baabuurtan militariga loogu talagalay waa markii ugu horeysay ee aan anigu arko intii aan joogay magaalada Minneapolis inta badan baabuurtan way xareysan yihiin ma ahin baabuur loogu talagalay wadooyinka magaalada dhinacaas kale haddii aan daawadayaal idiin muuqata waa halkii uu banaanbaxa ka bilowday iyo saldhiggii booliska hadda cidna uma gudbi karto booliskii magaalada Minneapolis saddexdii maalin ee la soo dhaafay taagnaa jidda hore ee mudaharaadka hadda waxaad moodaa in ay nasanayaan No justice, no peace. Prosecute the police. 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 No justice.
police. No justice, no peace. Prosecute the 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 police. Send out your fucking weapons. Peaceful fucking protest. Who the fuck are you gonna shoot? Shoot some people wanting some motherfucking damn. waxay ka xanaaqsan yihiin askarta hubeysan ee dadka loo soo daadgureeyey waxaad u malaysaa in dadku ay weli imaanayaan gabadhani booliska ayay ag fadhiisatay dawadayaal haddii aan dhankan kale idin tuso goobahan waa goobo ganacsi oo magaalada Minneapolis ku yaala waddadan waxay ahayd waddada ugu muhiimsan magaalada Minneapolis magaceedu waa Lake Street hadda waad arkaysaan way xiran tahay qof lugeynaya oo kaliya ayaa mari kara goobahan ganacsi oo dhan cagta ayaa la mariyey waa la bilqaystay halkan waa Twin Care Dental gabar Soomaaliyeed ayaa iska leh waa meel ilkaha lagu hagaajiyo ilkaha lagu nadiifiyo ma garan karo khasaaraha gaaray laakiin khasaaro fara badan ayaa gaaray goobaha ganacsi ee halkan magaalada inay saan u qaacdo ma ahayn wax loogu bartay magaalada Minneapolis waxay ka mid tahay magaalooyinka qadiimiga ah ee dalkan Mareykanka iyo magaalooyinka ugu caansan dalkan Mareykanka magaaladani waa magaalada ugu badan ee Soomaalida Mareykanka ay ku nool yihiin magaaladani waa magaalo caan ah waxaa ka soo baxay siyaasiyiin badan oo Soomaali ah halkan waa xarunta bangiga Wells Fargo in la jabsaday ayaa haddana lagu qoray ereyo fara badan oo loogu cadaalad lagu raadinayo ninkii dhintay ee madowga ahaa meel kasta waxaa taagan baabuurta dabdamiska magaalada Minneapolis baabuurtii dabdamiska magaalada Minneapolis waxaad moodaa inaysan ku filnayn in magaaladii ay damiyaan taasi ayaa sababtay in baabuur kale oo dheeraad ah ay ka dalbadaan magaalooyinka ku hareeraysan Minneapolis si magaalada sharafteedii iyo sumcaddeedii dib loogu soo celiyo waxaad arkaysaan baabuurta dabdamiska oo weli la tacaalaya halkan waxay ahaayeen ganacsiyo waaweyn oo ku yaala magaalada Minneapolis dadka Soomaalida ah waa kuwa soo lugeynaya weli ka qayb qaadanaya mudaharaadka dhankaas kale Soomaali ayaa taagan sidoo kale waxay ka qayb qaadanayaan bilicda iyo nadaafadda magaalada waxaad moodaa qolada dabdamiska in ay daaleen ayaad moodaa laakiin shaqadii xalay ay soo galeen ayay ku jiraan ilaa iyo hadda dhismahani waad arkaysaan dab ayaa la qabadsiiyey Minneapolis oo ganacsiyadii ka samaysnaa muraayadihii quruxda badnaa maanta sidaas ma ahin oo waxaa lagu dhajiyey alwaaxyo macmil ah halkan goob ganacsi ayay ahayd weliba dhowr ganacsi oo kala duwan ayay ahayd waa la boobay la bililaqaystay kadibna waa la gubay waata daawadayaasha telefishinka Universal waa idinku soo noqon doonaa markii aan tago faras magaalaha Minneapolis oo banaanbax aad u weyn oo xoogan uu hadda ka soconayo daqiiqado kadib markii aan tago ayaa dib idinkugu soo noqon doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo inta ka horeysa waa deeq darajo oo idinkala soo hadlaya magaalada Minneapolis